goorsan daawadayaal waa mar kale iyo xuliyo xaqiiqo oo aad ka daawataan alool t v waxaynu kaga dhergaynaa qaybtan haddii aan laydmo wadamo cusub oo kusoo biiray rabitaanka xubinnimada ururka ciidamada ee nato iyo sweden oo iyaduna sidii la filayay shaacisay mowqifkeeda. taariikhdu waa 16 May 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada. wadanka sweden xisbiga talada haya ee social democratka ayaa sheegay in ay taageersan yihiin ku biirista isbahaysiga amniga ee nato, taas oo u gogol xaaraysa in ay codsadaan xubinnimo buuxda. ku dhawaaqista ayaa timid wax yar kadib markii sidoo kale Finland ay si rasmi ah maalmihii lasoo dhaafay u shaacisay inay codsan doonto ku biiristaas kooxda. sidoo kale waxaa iyaduna xiisada ku soo korodhay meeqaamka dhexdhexaadnimada ee wadanka Switzerland oo la sheegay inuu wajahayo tijaabadii ugu weyneed muddo 10 sano ah, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee ay u janjeersatay inay ku dhawaato awoodda military ee reer galbeedka si ay uga jawaabaan bay yidhaahdeen duulaanka ruushka ee Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga ayaa soo diyaarisay warbixin ku saabsan fursadaha amni oo ay ku jiraan dhoolatus military oo wada jir ah oo ay la sameeyaan dalalka nato. sidaa waxaa sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Switzerland ahna madaxa siyaasadda amniga ee wasaaradda gaashaandhigga Switzerland. faahfaahinta xulashooyinka siyaasadeed ee laga doodayo dowladda hore looma sheegin, balse golaha wasiirada ee Geneva ayaa u dhow in ay isku raacayaan ku biiritaankaas. dhexdhexaadnimada Switzerland ayaa taagneyd tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka qarnigii 20aad. ma ahayn ujeedo lafteeda ah, laakiin waxaa la rabay bay yidhaahdeen dowladda Switzerland in lagu kordhiyo amniga Switzerland. waxa kale ee soo kordhi kara waxaa ka mid ah shirar heer sare ah iyo kulamo joogto ah oo dhex mara taliyayaasha iyo saraakiisha ciidamada Geneva iyo ururka ciidamada. in aad loogu sii dhawaado isbahaysiga waxa ay calaamad u noqonaysaa in laga baxo dhaqankii si taxadirka leh loo koray ee ahaa in aan dhinacna loo xaglin, taas oo ay taageerayaashooda sheegeen inay Switzerland ka caawinayso in ay si nabad ah u barwaaqoodo iyo in ay sii wado door gaar ah oo dhexdhexaadnimo ah oo ay ku jirto bay dhaheen markii ay reer galbeedku ilaamiyeen ama uu dhex maray dagaalkii midowgii Soofiyeed. fikirka xubinnimada buuxda ee nato ayaa laga wada hadlay markii ugu horreysay, waana wadan cusub ama dowlad cusub oo ku soo biirtay rabitaankaas. hore waxaynu ogeen in Sweden iyo Finland muran xoogan uu ka jiray oo gantaalada waxgumaada uu ruushku ku jiheeyey, isaga oo ku doodaya in ay lidi ku yihiin haddii ay ku biiraan ururka nato, markaasna uu geeri ka xigo. hadda ruushku waxa uu sheegay in Switzerland oo ku biirta ay sidoo kale ka soo horjeedaan, markaasna ay ka qaadi doonaan tallaabo aanay weli shaacin. dalka Switzerland dagaal caalami ah kuma uusan dagaalamin tan iyo 1815 markii uu qaatay dhexdhexaadnimada Kongareeska Vienna, kaasoo soo afjaray dagaalkii kacdaankii Faransiiska. axdigii 1907 ee lagu galay magaalada Hague ee lagu asaasay Switzerland ayaa dhigaya in Switzerland kama qayb qaadan doonin ama aanay ka qayb qaadan doonin iska hor yimaadada hubaysan ee caalamiga ah, umana xaglin doonto mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya, mana ku caawin doonto ciidan ama hub ama dhulkeeda oo ay degaan ama ka duulaan mid ka mid ah dhinacyada ishaya. colaadda ka ololeysa Ukraine ayaa ruuxaysa wax kasta oo hore u jiray iyo xeer iyo caado wixii wadamada awoodda sheegtaa iskula dhaqmi jireen.